بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله موقع كيغا وحن ربعنا نوجه الله موضوع سواء حالة ما أنت كتاجن أو ما نكتي أو عند جنين أو سياسة أي سلك كويس كتاجن سومالي لا سؤال أن ربع معناها ومدى الصوماليات يوم مدحنا الصومالية حتى شوكتو وجامعنا يوم مدن حسن شيخ محمود أو سؤال waxa maxaanu ka baran karnaa ka shacab ahaan iyo ka dawlad ahaanba arrimahan Soomaaliland maanta ka taagan runtii wax badan ayaan ka baran karnaa midda ugu horeysa waxay tahay Soomaaliland runtii maaragtay heshiis dawladeed oo dastuurku iyo haday tahay haykalada dawladaba intaba wixii looga baahnaa way soo suubiyeen waxa kamid ah wixii looga baahnaa in dastuurku uu dhamaado oo san qabiyo qoraal ahaanin sida hadda keenna oo maaragtay kan hadda dawladda federaalku yaalo qabiyo qoraal ku yahay oo inuu Xasan Sheekh uu dhameystir iyo maamul goboleedyada laba in dastuurkaasi abti loo qaado runtii asagana way hortaala Xasan Sheekh inuu abti dadweynaha u qaado dastuurkan saddex waxa kale horyaala Xasan Sheekh iyo maamul goboleedyadaba in laga baxo awood qaybsigan maaragtay qabiilku ku salaysan 4.5 oo loo gudbo nidaam maaragtay oo xisbiye loo gudbo shan in la dhiso maxkamad dastuuri ah oo haykalada dawladda ay kala hagta waxa kale kamid ah in la suubiyo doorashada golaha deegaanada la suubiyo toddoba waxa kale kamid ah in la qaado abti in la qaado oo maaragtay tricop in loo suubiyo dadka codka bixinayo sideed in la suubiyo commissionkii doorashooyinka suubilaha intaba maanta Xasan Sheekh iyo dawladdiisa way hortaala shalayna waxay hortiilay oo gudan waayay farmaajo Xasan Sheekh oo kasii horeeyay asaga laftarkii uu gudan waayay maanta way hortaala shaqooyinkaasi oo dhan ayaa horyaala laakiin maanta waxaan rabaa in aan macnaha aan isweydiino maxaan ka baran karnaa Soomaaliland inta qodob oo hadda aan soo sheego oo sideed qodob ah way soo suubiyeen runtii sideed qodob iyo waxay intaas oo dhan u soo suubinayaan waxay ahayd in bulshadaani ay maaragtay si ay wada joogoodan oo maaragtay ku heshiiyaan dastuur wada joogooda wixii sahli lahaayna oo adeegooda iyo cadaalad dhaxdooda loo kala fali lahaayna oo la dhisay haykaladii dawladda oo ay ugu horeyso arrimaha nabadgelyada runtii intaba Soomaaliland way soo suubisay marka ayagoo intii dhan soo suubi warbal maanta maxaa haysta Soomaaliland maanta waxa haysto waxaasoo dhan waxa loo soo suubinaa waxay ahayd in laga baxo 4.5 waxaasoo dhan waxa loo soo suubinaa waxay ahayd in ummadaasi ay heshiiso ay wada noolaato oo maaragtay ay ka shaqeyso in ay horumariyaan dadkooda iyo horumariyaan waxa kale ay macnaha ka turjumaysay in haddii intaas oo dhan helayaan inay noqonayaan dal kamid ah dalalka adduunka jooga oo shacabkiisu nabadgelyo ay ku wada nool yihiin ay macnaha ay maaragtay ay nabadgelyo ku wada nool yihiin dhibaatooyinka iyo caqabadaha qabsadana haddii ka shacab ahaan iyo haddii ka madax ahaan lahayna ay ku xaliyaan dastuurkaas inay ku xaliyaan laakiin nasiib darro maanta waxaan ognahay intii loogu talagalay daawooyinka loogu talagalay oo dhanba inuusan macnaha runtii daawo u noqonin waxyaabahaas dhan oo ay soo suubiyaan annagana hadda maanta waxaan nala leeyahay haddaad rabtaan Soomaali dagaalkan sokeeya inaad ka baxdaan dhibaatooyinka inaad ka baxdaan inaad nabadgelyo heshaan inaad maaragtay dhalinyaradiina 80% u badan inaad shaqooyin heshaan inaad maaragtay wadankiina horumarisaan intaas oo dhan wixii Soomaaliland soo suubiyo waad ka baxaysaan laakiin runtii maanta Soomaaliland maxaan uga jeednaa runtii wixii oo dhan ay soo suubiyeen wax ay ka baxayna ma jirto meeshii qabiilka ay maanta taagan yihiin maanta waxa xalkooda raadinayo runtii waa laba qolada waxa la yiraahdaa European Union oo international community bal maxaa dhaxdhigay war haddii maxay isku haystaan dadkan haddii yihiin heshiis bulsho ayaga ay leeyihiin maxaa European Union ka soo dhaxdhigay runtii waxa waa su'aal iyada isweydiinteeda mudan waxa kale iyadana isweydiinteeda mudan dastuurka oo macnaheeda loo suubiyay in hadduu yahay heshiis bulshadeed hadduu yahay oo ayaga ay leeyihiin haddii isku qabsadaan waxay ahayd in dastuurkaasi uu kala saaro oo ay qaataan in la heshiis bulsho ahayn maya
uma noqon maanta waxa loo noqonayaa qabiiladii loo kala baxay Somaliland marka wixii oo dhan waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay marka su'aasha marka isweydiinta leh maanta waxay tahay dowladdan Xasan Sheekh maanta hoggaanka u yahay haddii maanta ay hor yaalaan su'aalo ah war inta haddaa suubisaan waad ka baxaysaan su'aalaha horta anagu ma lihin dhibaatada sidaan aan waddankeena dhibaatada ka jirtana sida aan u aragno annaga aragtideena kuma salaysno halka waddankan u baahan yahayna aragtideena kuma salaysno liis dheer baa nala dhiibay liiskaasi shalay Somaliland baa loo dhiibay iyagana way suubiyeen dhibaatadiina waa ga bixi waayeen oo maanta qabiilkii ayay taagan tahay iyo ay soo dhaxgalaan nimanka international community-ga ah maanta annaga liiskii hor dheera ayaana hor yaallo yaa garan kara yaa xaqiijin kara maanta hadduu Xasan Sheekh suubiyo in aanan sidii Somaliland oo kale siyaasiyiintooda aan u dhamaanayn yaa noo xaqiijin kara marka su'aasha isweydiinta leh waxay tahay war marka waqti inaan ku dhumino ma xaqba liiska dheer ee nala dhiibay aan ognahay meesha uu ku dhamaanayo waayo sababta walaalaheen Somaliland ayaa qaatay meesha ku dhamaaday oo maanta ay joogaanna waan ognahay marka inaan waqti ku dhumano liiskaas dheer oo international community noo dhiibtay ma arrin fiican ba mise waa in aan runtii aan su'aal isweydiinaa oo aan nirahnaa waddankeena intaasoo sano ayaa maaragtay oo aragti iyo xal oo ay Soomaali lahayn ba maaragtay nala dhiibay sambuuskaas Afrigeeska nala dhiibay homeworkagaasi aan jawaabaheeda aqoonin baa nala dhiibay inaan iska dayno oo annaga laftarkiyaga Soomaali ah inaan dhibaatadeena annaga aragno xalkeenana annaga aan aragno aan u madax banaanano oo maaragtay taamiya daawada ku jirta horta inaan isweydiino ayaa habboon runtii Somaliland runtii shacabka Soomaaliyeedna wax runtii cashar ay wax ka baran karaan ayaa meesha ka muuqdo dowladdan maaragtay hoggaanka hadduu ahaa madaxweyne Xasan Sheekhna waxaa ka maaragtay cashar ay wax ka baran karaan ayaa meesha ka muuqato inta hortaala ee shaqa oo maanta leeyahay waan qabanay hadday tahay nabadgelyo hadday noqon lahayd awood qaybsiga hadday noqon lahayd khayraad qaybsiga hadday noqon lahayd in laga baxo maaragtay nidaamkan wax qaybsiga qabiiliga xisbiga loo gudbaba intiba walaalaha Somaliland ayaa soo suubiyay maanta meesha ay taagan yihiin waa ujeedaa maxaa xaqiijin kara adiga berito marka 10 sano kale ama 5 sano dambe aad hoggaanka hayso ama 4 sano inaad waqtiga ku dhumiso oo aad ku xaqiijin kartaa in ay ka soo bixi karaan wax ka fiican wixii Somaliland walaalaha ka soo bixi karo runtii su'aalahaas inaad isweydiisid ayaa habboon shacabka Soomaaliyeed inay su'aalahaas isweydiiyaan ay madaxdooda u sheegaan way habboon tahay marka anigu waxaan aaminsanahay in wax aan ka baran karno haddaan nahay shacab iyo haddii ay yihiin madaxda dowladda federaalka oo hoggaan ku ah mudane Xasan Sheekh Maxamuud labadaba inay wax ka baran karno kadibna aanu maaragtay liiskan dheer oo iska haysano oo ah aragti oo ku salaysan aragti aan Soomaali ahayna inaan niraahno aragtidiina meeshan dhiga 30 sano iyo naga soo qaadatay walaalaheen sidaas oo kale dhowr 30 sano ka soo qaadatay annaga ayaa halkeen la imaanayno in aan macnaha go'aankaas geesinimada ah annaga iyo maaragtay madaxda dowladda inaan wada qaadano haddaan ka shacabnaahna ayaa fiican ayaan leeyahay taasaan ka baran karnaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.